بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حلقة maanta waxaynu kaga hadlaynaa muxuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga dhigay rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam nabiyun ummi. muxuu Ilaahay uga dhigay nabigeena nabi ummi ah oo aan waxna qorin waxna akhriin, isagoo nabigeenu alayhi salaatu wa salaam ah خاتم الأنبياء والمرسلين كي ugu dambeeyay Ilaahay ku xidhay wixii uu rasuul iyo kutub soo dejiyay. Ilaahay ka dhigay midkii uu ku soo dejiyay kutubtii uu ambiyada kale ku soo dejiyay oo dhan midka ugu fadliga badan oo ah Qur'aanka. Ilaahay ka yeelay sayyidul awwaliin wal aakhiriin wa khayru khalqillahi ajma'iin. Rasuulka uu Ilaahay ka dhigay midka wax allaala wuxuu Ilaahay abuuray malaa'ig, jin iyo insi midka ugu Ilaahay ugu jecel yahay ee Ilaahay ka doortay isagoo ah. haddana muxuu Ilaahay uga dhigay nebi aan waxna qorin waxna akhrin, waayo kitaabkeenna iyo kutubtii ka horreysayba sida injiil iyo towraa wuxuu Ilaahay ku xusay inuu nebi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam yahay nebi ummi ah, siduu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qur'aankeena ku sheegay markuu yidhi alladhiina yattabi'uuna ar-rasuula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajiduunahu maktuuban 'indahum fi at-tawraati wal-injiil. النبي الرسول النبي الأمي صدح صفو ayuu Ilaahay israaciyay rasuulkeena alayhi salaatu wa salaam aayadaas. waa rasuul, waa nebi, waana ummi. haddana waayo ambiyada iyo mursaliintu Ilaahay soo diray qaarkood waa nebi keliya, qaar waa rasuul keliya, qaarkoodna waa rasuul iyo nebi. marka rasuulkeennii Ilaahay intuu ka yeelay rasuul iyo nebi ayuu haddana ummi ka dhigay. maxay tahay xikmadda ku jirta oo uu weliba ku sheegay kutubtii inaga horreysay, isla markaana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku amray ambiyadii kutubtaa uu ku xusay nebigeena alayhi salaatu wa salaam inuu ummi yahay haddii ay noolaadaan ama soo gaadhaan nebi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam inay raacaan oo u hoggaansamaan. nebi weliba wuu ugu bishaarayn jiray ummaddiisa inuu imanayo nebi ummi ah. sidaas markaa wuxuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala isagoo kutubtaa ku sheegay oo dadkii inaga horreeyey u bishaareeyey inay raacaan ku amray, oo sida uu sheegay مثلا عطاء بن يسار رضي الله عنه وأرضاه ويري مالين بان لكلمي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وه صحابي كوي صحابتي يريريد ee dhalinyarta ahayd kamid aha oo akhri jiray tawraat. markaasaan ku yiri buu yiri ya Abdullah, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sifada uu ku sifeeyay tawraa nabigeena alayhi salaatu wa salaam bal iga war. wuxuu yiri wallahi innahu la mawsuufun fi at-tawraati ka sifatihi fi al-Qur'aan. Ilaahay baan ku dhaartay sida uu Ilaahay Qur'aanka ugu sifeeyay si la mid ah ayuu tawraadna ugu sifeeyay. oo muxuu yiri buu yiri يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. نبي يا أيها النبي نبي الله waxaanu ku soo dirnay inaad noqoto shaahid, mubashir iyo nadiir, mid u diga, mid u bishaareeya, mid ka markhaati noqda ummadii loo soo diray. وحرزا للأميين كتابكeenna inta kaliya kaga duwantay wuxuu yiri Abdullah ibn Amr ibn al-Aas sida ay rasuul ay ugu taalo kitaabkeen waxa kaliya ee halka uu tawraa kaga geedsantay kitaabkeenna waxa weeye وحرزا للأميين inuu yahay mid ilaaliya, xafida, haga oo hogaamiya ku toosiya xaq
ummiyiinta ummadda ummiga ah ee uu soo diray ilaahay subxaanahu wa tacaala. dabeetana wuu sii socday oo wuxuu ka gaadhay inuu yidhi cabdullaahi bnu camr walan yaqbidahu allahu xataa yatima bihi lmillata alcawjaa. ilaahay nafta ka qaban maayo ayaa ku taalla towraad. nebiga ummiga ah ilaahay nafta ka qaban maayo ilaa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku toosiyo wax allaale wixii milal ama diimo cawja ah ee qalloocay oo dhan ilaa ku toosiyo bian yaquuluu an laa ilaaha ila allah, oo ay yidhaahdaan laa ilaaha ila allah. ilaa maantada aynu joogno dadka culimada ah ee towraa iyo injiil darsa way og yihiin rasuulkeennu calayhi asalaatu wassalaam inuu ilaahay sidaa ku sifeeyey, inuu ilaahay ku amray ambiyadoodaas in ay dadkooda faraan haddii ay soo gaadhaan oo noolaadaan isaga oo jooga in ay u hoggaansamaan. sifadaa ummiga ihina waxa weeye mucjiso aad u weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ayiday ama ku taageeray rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam, ahna mucjiso daliil u ah in qur'aanka uu la yimid rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo wuxuu ku hadlayo aanay ahayn wax kale balse ay leeyihiin min cindi illaahi tabaaraka wa tacaala. waxay kaloo daliil u tahay inuu ummi yahay, mid aan waxna qorin waxna akhrin. wixii uu ku hadlo in ay yihiin run, ay tahay run uu ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa inooga keenay. umminimada uu nabigeennu yahay calayhi salaatu wasalaam, isagoon waxba qorin oo aan waxba akhrin, ayaa ilaahay ku soo dejiyey qur'aan. qur'aankaas oo ah mucjiso dhinac kasta oo aad ka eegto. wakhtigii uu nebigu ilaahay ku soo dejinayay qur'aanka waxay ahayd wakhti ay carabtu ahayd super power, oo halka maanta nuclear powerka lagaga hadlo iyagu waxay taagnaayeen halkaa nuclear powerka. waayo gabayga iyo balaaqada iyo fasaaxada afkooda ayaa waxay ahayd mid qofkay doontona kor u qaada isagoon waxba ahayn, mid wax ahaana hoos u dejisa oo calankiisa burburisa. waa super power bay ahaayeen. waxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku amray nebigiisa in ay haddii ay jinka iyo insiga iyo cid waliba isu timaado aanay la iman karin qur'aankaasoo kale, bal keena, bal la yimaada, bal 10 suuradood la yimaada oo la mida. ka gaadhay ilaahay inuu yidhaaho bal suurad keliya oo la mida keena. waa aftahamadii gabayaagii cidday doonaanna kor ugu qaadayay, ciddooda doonaanna ku dejinayay ayuu ilaahay ku yidhi subxaanahu wa tacaala. maalintaasaa gabayga baawarkiisii, aftahamadii iyo wax walba baawarkoodii maalintaas ayuu joogsaday oo shiikhay. intaa kale waxay dheer yahay qur'aanku in uu caqiido iyo cibaado iyo maxay ahayd axkaam shariici, akhlaaq, aadaab, qisas wax loo dhigo iyo meel looga dhaqaaqo aan lahayn midna inuu qur'aanku ka kooban yahay. waxaasoo dhammi waxay ku soo degeen nebi ummi ah sala allahu calayhi wasalam, oo maalan qur'aankii ilaahay ku soo dejiyey leeyahay ama inooga warramayo abuurtii bani aadamku markuu ku abuurmo ilmuhu uurka hooyada iyo tadawuraadka ama marxaladaha uu maro, siduu alla yidhi subxaanahu wa tacaala walaqad khalaqna alinsaana min sulaalatin min tiin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. آياداس وحو إلهي سبحانه وتعالى كسو دجيه نبييسي أميغا أهايان وحنا قرين وحنا آخرين balse waxay nooga waramaysaa ilmaha uurka hooyadii ku jira ee mugdiga biyaha gudihiisa iyo jirka gudihiisa ku jira marxaladuhu maro ilaahay nooga sheegay oo ah inuu nutfa marka hore candhuuf yar ka samaysay candhuuftii mudqa ama maxay ahayd
xinjir laga sameeyey xinjirtii ay noqotay cad yar cadkii yaraa lafa laga sameeyey lafihii hilib la dul saaray ama lagu duubay waa mucjiso 1400 oo sanadood rasuulkii ummiga ah uu ku dhawaaqay qarnigii 19aad oo keliyana bani aadamku ay ogaadeen sidoo kale wuxuu rasuulku yiri sallallahu alayhi wa sallam kama fi sahihayn إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون مثل ذلك علقة ثم يكون مثل ذلك مضغة ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر ب4 كلمات إلى آخر الحديث وحينو شيء النبي عليه الصلاة والسلام نبي أمي إن علمه markuu uurka hooyadii ku abuurmayo 40 cisho ugu horeeyay inuu yahay dhibic yar oo candhuufa dabeetana 40 kale uu ahaado calaqa xinjir 40 maalmood oo kalena uu noqdo mudqa hilib la calaliyay oo kale ama xanjo la calaliyay marka ay intaasu dhamaato 120 ka maalmood dabadeed ayay ilaahay malag u soo dira malaga wuxuu ilaahay ku amraa inuu qoro qofka amalkiisa risqiisa ajashiisa macni intuu noolaanayo iyo inuu janno tagayo ama naar tagayo waxa weeye waa nabi ummi ah oo aan waxba qorayn waxna akhriyeen balse cilmigaas iyo awoodaas ayuu maxay yahay quraanka awoodaale ayuu ilaahay ku soo dejiyay midda labaad haddii uu nabigeena ilaahay ka dhigo subxaanahu wa ta'ala mid wax qoro midna waxna akhriya waxay oran lahaayeen dadka ka soo horjeeda ee la dagaalamay oo dhami shaki bay gelin lahaayeen kuwii u hoggaansamay oo waxay oran lahaayeen ama sida yiraahdeenba wuxuu ka soo xadilay kutubtii ka horeysay intuu akhriyay ayuunbuu isu keenay oo wax soo dhabdhabay oo halkan iyo halkan ka soo bedelay ilaa maantadaana way leeyihiin gaalada mustashriqiinta la yiraahdo ee cadowga ugu waaweyn kamida islaamka waxay ilaa maantada sidaas ay ku dhawaaqaan ilaahay baana inoo soo sheegay wuxuu yiri maxay yiraahdeen kuwii quraysh iyo yahuudi la noolay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu quraankii soo degay ay arkeen powerka uu quraanku leeyahay super powerkii ay ahaayeen uu sheekhiyay maxay yiraahdeen وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وحيابو اسكو سو ددبay ya oo isku soo dhadhajiyay oo ka keenay maxay ahayd meelahaas ama loo yeeriyo galab iyo habeen bay yiraahdeen waa in exactly waxay maanta yiraahdaan nimanka mustashriqiinta la yiraahdo ee cadowga ugu waaweyn kamid ah diinta islaamka waxay ogaayeen mesela qurayshtii iyo yahuudi la noolay nabigu calayhi afdalus salaatu wassalaam waxay ogaayeen nabigu markuu dhashu korayay inuu ummi ahaan waxba qorin waxna akhrin 40 sanadood buu la noolaa oo dhex joogay oo ay ogaayeen in aanu inuu ummi yahay maalintii waxyigu ku soo degayse waxay ka dhigeen qof wax qora oo akhriya oo halkan iyo halkan iyo halkan intuu ka soo qaaday wax isu geegeeyay alxamdulilaahi rabbil aalamiin way ogyihiin xaqiiqadu waxay tahay balse way iska indhatirayaan midda saddexaad ummadda uu nabiga ilaahay u soo diray qudheedu waa ummad ummi ah weey sidoo alla yiri subhanahu wa ta'ala aynu ognahayna inay ummi ahaayeen huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin ya وحوي النبي محمد صلى الله عليه إلهي وكي أصدري أمدا أميين رسولا منهم نبي إيجا كم بدم يعني يسقون أمئة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هدي أوها كواها قرآن كاكهر النبي أمي كاكهر قار ضلال يجهل كسكن أين أغنى هاي ضلالك يجهل قود أنتو الأجي هاي وي ummadda ummiga ah ee aan waxna qorin waxna akhriin iyo nabiga ummiga ah ee ilaahay u soo diray wuxuu ilaahay ku guuleeyay nabigaas ummiga ah wuxuu ku guuleeyay in uu ka dhigo ummadda ummiga ah ummad hogaamisa khalaa'iq maxay ahayd ummadaha kale oo dhan ee ku noolaa adduunyada
cahdigii asxaabta iyo taabiciinta iyo tabucu taabiciin waxay gaadheen wax allaala waxa maanta science iyo technology, mathematics, medicine, ophthalmology, astrology, optics, geology, you name it. You name it. meesha doonto ka keen science kasta ama branch kasta oo science adduunyada oo maanta la isticmaalo nimanka aasaasay ee ka gaadhay heer ay authority noqdaan. Authority waxa la yiraahdaa qofka aan cidi ka daba hadal branch science-ka ka mid ah. cidi ka daba hadal kelmaddu yiraahdo halkaas lagaga tegaya. waxa authority la yiraahdaa qofka scientist-ka kale markuu research sameeyo ka saxa ee editing-ka ku sameeya ee dabeetana adduunyada yiraahdaa wixii uu sheegayay waa sax weeye hal la publish gareeyo ayaa authority la yiraahdaa. nimanka muslimka ah ee magacyada ugu waaweyn branchska science ee maanta hadda tagto Harvard iyo Yale iyo Cambridge universities ilaa maantada reference-ka loo haysto cilmigooda baseline dadka researcherski waxay yiraahdaan baseline publications. dadka qoray waxa kamid ah ee maanta adduunyada caanka ku ah Al-Biruni مثلا oo la yiraahdo waa universal genius. waxa weeye nin physics iyo mathematics iyo maxay ahayd astronomy one science ma branch kaliya science ma physics math iyo astronomy bu authority waxa markuu noolaa waa ninka latitude iyo longitude ila xad ka gaaray maanta la isticmaalo soo saaray way astronomical instruments ki uu invention ka ku sameeyay waa kuwa maanta dayaxa iyo Mars iyo meel walba lagu maxay ahayd lagu eegayo ee lagu isticmaalayo. Al-Khawarizmi maanta scientist qofkii sheegta adduunyada la nool yahay waa qof branch yaro kaliya authority ku ah. Al-Khawarizmi iyo Al-Biruni Al-Khawarizmi wuxuu ahaa mathematics oo algebra iyo algorithm astronomy geology intaba nin cidi aanay uga dambaynin buu waqti uma haynee waxaan oran lahaa dhalinyarta maanta bahalkan la salaaxayo maxay ahayd ku wada foogan bal waxa galisaan dadkii muslimiinta ahaa min fadlak gali magacyada Al-Biruni waxa galisaa Al-Khawarizmi Afasinai Abu Zayd Al-Bakhli Hunayn ibn Ishaq iyo maxay ahayd researcherka maxay ahayd sergeantka adduunyada maanta ilaa maantada loo yaqaano biggest sergeant in the world Al-Zawahiri waninka soo saaray irbada qalloocda ee wax lagu talo siriijka maxay ahayd forceps-ka ay dhakhtaradu wax ku soo jiidaan waqti uma haynee bal hada geliya google-ka oo daawada insha Allah ta'ala dadkii muslimka ahaa ummadda ummiga ah uu nabigu ku hogaamiyay inay noqdaan kuwa adduunyada kale oo dhan hogaan u ah la tiigsado lagu faano. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.